maalintii doraate aynu soo dhaafnay ayaa mid ka mid ah xayawaanka hawada duula ee loo yaqaano gorgorka noociisa la yiraahdo baqayada waxa ay ku weerareen caruur yaryar santarka Cali Jaamac oo 35 kiiloomitir ka xigta dhankan koonfur galbeed degmada Gaashaamo ee ismaamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Gorgorkan ayaa soo weeraray santarka Cali Jaamac wuxuuna ku cunay caruur yaryar oo ahaan 3 jir iyo 5 jir kala ahaa. labadii yaryara mid halkii ayuu ku geeriyooday kii kalena dhaawiciisii waxa loola soo cararay magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad. saaka waxaanu booqanay guriga uu yaalo wiilka dhaawaca waxaana nooga warbixiyay sida wax u dhaceen wiilka hooyada dhashay iyo aabihiiba. waxaanay tiri hooyada oo hadalka ku bilaabaysa inanka geeriyooday iyo inankan u dhaawacay inanka uu geeriyooday ba horeeyay marka inanka guriga miyiga ah baa lagaga tagay laba carruur yar guriga agtiisa joogeen way hooyaduna way ka tagtay arbay qabatay way ka tagtay labadii carruur ahaa marka kii kale uu ooyay roognaabay u timid inankii marka ay u timid wuxuu tiri mee hooyo inankeeni kale oo kaaso inankeeni biyo shimbir baa halka ku cunaysa way soo cartay way u timid marka inankii oo aan naf yar ku jirto ayay halka ugu timid isla habeenkiiba marka waa la aasay inankii sidoo dhibaatada u gaarsiiyay sidoo cunay inanka wuxuu u cunay inanka markii hore wuxuu ka haleelay labada indhoodba wuu kala baxay markii dambe hungurigiina wuu kala baxay carabkii wuu ka cunay daamankana wuu ka cunay hore labada indhood buu ka cunay hungurigiina wuu kala gooyay wuu kala soo baxay carabkii wuu ka cunay daamankana wuu ka cunay inanka waxa la joogtay inan yar ay walaalihiin iyo caruur kale way la joogeen ciise markaa ciise ugu soo horeeyay ciise qabsaday ciise markii uu qabsaday ee uu iska fujiyay uu saa isaga turiyay uu ka cararay inantiina qayladiisa maqashay way ku soo oroday waxay la kulantay isagoo qaatay ku kor qaatay markii inantii ay qayladiisa uu maqlay ku soo kadisay buu inankii soo daayay marka halkaas ay dhaawiciisa ka soo qaadayna marka caruurtii kale muu qabsanin ciise markii bahalkii uu qabsaday ee uu dhaawac u geystay uu ka baxsaday haddana uu soo gaadhay inantiina qayladii maqashay way u timid halkaas ay ka gariday isagoo kor qodlacay dhacdan oo kale de hore ugamay dhicin xoolo kuma cunin bidhaantiisa maanaan arag de waqtiyaal way jirtaa aanu baqayo arki jiray oo meelaha fadhiista laakiin wax sidaas oo kale de wax u yeeleeya ama soo weerarkaas oo kale geysta maanaan arag baqayahaasu shimbirahaasun bude kamid ahaayo xawayaanka kale u bixin jiray laakiin waa dhacdo koobaad maanta nagu bilaabatay in bini'aadankiina uu cuno baqayahaas dhulka waxa joogi jirtay in libaaxiye dadku wada deganaan jireen laakiin maanta waxay maraysaa in shimbiri dadkii baa cunaanba imankana waxa la sheegaya bahalka inuu aad meeshii u wareegaysay dawladda kiilka shanaadna waa ku baxdo aad bayna u daba socotaa baa la sheegay bahalkaasna waa bahal duulaya samadaas inuu joogayo meel xabadi ka gaadhana ma joogo waa waxa de ilaalada ee dhulka uu saa u eegayo hadba meel buu ku soo waxa la sheegaya xalayto nin weyn inuu igu yiri uu isigay shalay galabintan carraabay oo kamida santarka Cali Jaamac ka carraabay waxaana la sheegay imanka meelaha dhagxan yaacday meel shimbiraha la yiraahdo iyaguna laga xukumo degmada Gaashaamo laftigeeda inuu joogo la sheego shalay galab qaar ku weeraray kale shalay maalin weyntii waxa la sheegay inuu shimbiraha la soo galay de waa mucjisada wareegaysa waa shimbir dadkii lagu sayntay xogteeda haya maxabad kaliya bahashan ila meelaha kale shimbiraha loo kale weeraraysa Cali Jaamacadna joogta ma mid kaliya mise waa qaar far badan waa in Cali Jaamac iyo shimbiraha iyo markaad eegto Gaashaamo iyo waa inuu isu jirta 10 kilomitir 15 kilomitir wax isu jirtay weeyaan isaguna 15 kilomitir iyo 20 kilomitir isaga wax u hawl yar marka wuxuu waa shimbir quraamaha shimbir labaad waa caamaada qura waxaan maayay de kuwii rabaayada ahaa inay yihiin meel ka soo fakaday wax dhulka hore u joogi jireen maaha waa kan ciise yare oo ah wiilkii uu dhaawacu soo gaadhay oo isaga qudhiisu ka waramaya wixii soo gaadhay iyo sida dhibtu u dhacday u duulay muxuu ku dhuftay sidoo ku cunay cidiisa iyo afkiisa way cidiisu isay u ekaay maqaar dhudhuun baa waa wax dheer nabaradan kugu yaala isaga ku dhuftay way marka yaa ka celiya adiga markii uu nabaradan ku soo gaarsiiyay waa qayrisay markii la duulay waxa soo reebtay mid walaalintay ayaa soo reebtay marka ma ku qaatay kula duulay Axmed Xiis Cabdi Ducasane Saab TV Bro adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida